macnaha saani oo jaad balwada leeyahay saa macnaha dhuumashaal oo lagu cunaa balwad waa soo dhuuntay anoo soo dhuunto jaad waa u dhigil dhacday ku qaylis dhaayo ka dhuumo yaa lu ogaan ali soo qabtay markaan ilmaha gurgurkay soo qabtay wiil saas u shaqeeyaan way jiraan wiil loo xashish ah way jiraan wiil kiram dool isticmaalaa jiro qaar taanbuu saartaa jiro daroogada ada aritid waa isticmaalay laakiin heeradaas meel ay ma kirtay mamnuuc ay ka tahay ya jaad saraakiila isticmaasho waas waa una laakiin waa isla xaaladda heerada ma la dhaxay maana xaafadiisa ku isticmaalaa ana marka qaastaan sisaanteeda ku hadlo marka guri hooyaday ku noolaay marka ayaga la noolaa marka ayaga la noolaa farxad badnaani waqtiga guri hooyaday qoyskooda ay ka mid tahay guriga mi bixi jiran ani waalidiinta ismkeena jiran dugsi waa ka dhuumo jiray meelaha kala aaday laakiin marka ayaga oo ka mid noqday 24 saac farxadaan dareemay meena sidii oo waxa ay ii sameey jiran ilmo ayaga dhalin oo kale wiil yaraa markaas ay kulkulu jiraan okay markii aad shaqo gashay magaca hooyaday aabay baxsadaan maxamed dooyo yar walad afgarsida la taab iyo taqaan qudaafi deegaankii ku dhalatay magaalada Buurhakaw xageed ku barbaar meesha ku barbaaray ageen anoo al-shabaab waxa raacay 17 jir masha Allah raacay xagee ka raacay Bashir meel yiraahdo Buurhakaw wuxuu jirtaa 25 kilomitir ka raacay markii aad raacay al-shabaab soo raacay waa nala raafay ku dhino ilmo arday oo la raafayeen ma waan wax shakhsi aan ana u raacnimeen okay al-shabaab halkii geeyay meel dolan liira meena koorso nooga furay meeshaan aan nagala soo tababaray koorsada lagu furay meeqaahiga 400 Bashir 400 laga qaaday mise meel ma aniga 40 ruux ah meesha naga qaadeen qolo kale meel oo meena oo aydan sablaal agteeda oo laga soo waday hal meel isku keen dadkii meesha isugu yimid ma isbarateen dad isbaranaya meesha markaas koorsada isku jirnaa isbaranay deegaanada kala yimaadeen ku sheegeen qaar hamartaan ka soo baxaa jireen qaar oo meena dhinacaas gedi dhulkaas ka imaadaa jireen nin meel oo kala imaaday ashaab maxay idin bareen marka tababar ku jireen bal nooga sheekay wixii marka tababarka dhiganaysay tababar ku jireen wixii leedin sameynayay iyo sida hay xaalad maana ani qaab oo waxaan la baray sida qoriyadaas loo furfuro si naftadeena u difaacno 300 kilomitir ama 500 kilomitir amal aad oo joogto oo xeradan kugu soo dhaween oo kaliya aad ama 3 qof 4 qof amal aad tiin oo macna goobaasna meel oo furan halis ay tahay oo sidii oo adoo wadada socoto labada dhinac ciidan aad ka jiro soo isku badbaadi leed waxaasina soo baranay ashare iyo waxaasina soo baranay oo barkii ma qablo ku jirtay 3 bilood soo baratay marka ka soo dhamaateen tababarka halkii ugu horeysay ka hawga shaaqeen tababarkaas markuu ii soo dhamaaday 5 bilood howl ma qaban baane ameelna siiyo oo waxa joog oo lagu nasanay sablaal meel yiraahdo ma qabanin waxaan qabanay male meel oo magaalo oo sablaalo al-shabaab xukunto guriyaal oo u yaal oo dadkii oo macna tababar laga keeno oo meesha oo nasiil lagu sii aad joogni meeshaas askaaga baasaaleen shaqadii ugu horeysay qabato goormee meesha 4 bilood joog kadib bishii shanaada bilaabay shaqo shaqadii ugu horeysay qabato shaqadii ugu horeysay qabato shaqada ugu horeysay gaayid wado oo Cabdibilo labaday ku bilaabay darbo baday kuunyagteeda ka shaqo nooc ay qabanaysa markaas ciidan kale oo macna marka oo furmo oo dagaal la geenay aw qaad jiray dagaalkii ugu horeeyay ilaa moqti dagaaladu kala duwan yihiin nacma darbo Cabdibilo ay saas sheegtay wax ka baqanin waxa ay sheegtaa shaqadaas aan qabtay gaariga shaqo macna gaari Cabdibilo oo dhashiga saarna wadane shaqadaas aan qabtay gaarigaas aan waday hawlgalkaas qayb ka ahaa saas oo halka gaari Cabdibilo dhashiga saarna waday furun oo macna amsoomtiyo ana iska dagaalayni gaaridaas macna aan gacanteeda ku waday in gaan dheeriya saarnay gaariyaas min qaab walba oo macna is loo baahdo isticmaalayni
meel oo Kilimanjaro dhaan Kismaayo agteeda adiga guur ka gashay haa hawlgaladii aad gashay ilaa imsi hay 12 dagaal 12 dagaal haa ay kala dhacay Eelcado Birweyne Janaale Marko Kismaayo Dhobley intaas ku kala galay Baydhabo inta waxay sheegtay dagaalkii ugu horeeyay inaad ka darawalka haa kii ku xigay xaguu kii ku Dhobley waa gaas taas waa haa taas maxaad ka hay kaas gaari mudan ka caadiya ku dagaalmay gaas dagaalamaysa haa mid kii ku xigay waa asina sil Dhobley dileed yogi taas maxaad wadi ah taas maxaad ka caadi leh ku dagaalmay askariyada haa wax ma xukumeen ana xukunkayga waxa ku soo bilaawday Kismaayo soo gaadno askari baad taa waa dagaalamaysa haa xigay xaguu Kismaayo waa Kismaayo kaas duleedkeeda mise meel deegaana Barsan Guni meel laay oo Kismaayo duleedkeeda haa okay halka maxaa ka qaban halkaas ciidana hogaaminayo oo markaas aan sirkaal waay kala haa ilaa inta ciidan hogaaminaysa laayadi waxa hogaaminayo 150 hogaaminayo sirkaal waay ciidankaas watay muddo waxa ka shaqeynaa ciidankaas hal sano kadib ana meel sabla la yiraahdo anagoo wiil oo macnaa nin sirkaal oo ana iga saray wiil oo dhalay gaari la baraay oo Cabdibile gaariyo nolol gadii ana dhaawac noqday isbitaal la geeyay isbitaalka anoo ku jiray isbitaalka markuu ii soo dhamaaday waxa la dhahay 4 bilood fasax leedahay xaafadda iskaad anoo fasax ku joogo waxa soo aaday aw dhigl macnaa saani oo jaad balwada leeyahay macnaa dhuumashaal oo lagu cunaa balwad waa soo dhuntay anoo soo dhunto jaad oo aw dhigl dhaaday ku qeyl isdhaay oo ka dhuumo yaa loo ogaan ali soo qabtay markaan ilmaha gurgurkay soo qabtay okay intay markaad intaynan gaarin xagga dambe qabashadaada hogaamiyaad ahayd sarkaal hogaamiyaad markaa Barsan Guni dagaalada Eelcado kale maxaa ka xasuusta oo macnaa oo maxaad ka Eelcado Eelcado sirkaal la kaagaas ciidan awgeed haa halkaas sanaba hogaamiyaad haa Eelcado dagaalka qayb qaad ciidan oo markaas aan hogaaminayo aabo ku jireen markii la afjaray meesha kamid urur oo la isku keenayeen oo 500 amal qorshooyin adama lagu keenayo mugtahay dad madax ka sareeyo ama la soo shiraa adika weyn madaxdaas ku imaanayso meeshaas howlgal laga qabanaba ciidankaaga diyaarsan lagu leeyahay saan qaabkan howlgal loo qabana inta aad ku sheegayso male waxa lagu siinayaa shaxda lagu dagaalgalayso ma saxda waa lagu siinaa ciidanka intaas diyaarsan lagu leeyahay dhankaasan lagu qabanaba dhankaas markay saas ay tahay tuulada meel hibila laga soo galaa magaalada wadadaas u furan dhankaas xalas waa ciidanka ka ilaaliya lagu leeyahay okay markaad ciidankaaga aad madama hogaamiye ahay maxaa u sheegtaan maxaa loo sheegi jiray ciidamada geesida ciidamada waxaan ugu baraarujinaa in macnaa haddii goobahaas dagaalka oo la tago inuu gadaal soo jeesan ilaa macnaa wax ka duwan oo la siiyo oo ama ha noqoto baraarujin ama ha noqoto wax loo sheego ma jira wax bilwad horta la siiyay midna laakiin baraarujin aadi qof waxa lagu baraarujinaa tooso macnaa howlgal ku jira oo dhinto inuu oo helaayo 72 gabdhood oo horaleene inuu helaayo oo jinno oo macnaa oo helaayo intaas loo sheegaa laga dhaadhacsinaayo ma jiraan wax tahliil la siiyo tahliil iyo waxaas ma jiraan waxaas mamnuuc quraafaad dadka wataan lama tahliil iyo shaqaantaada saacadii hooyada aabaha ku dhalanataadii wiil saas u shaqeeyaan way jiraan wiil waxa shisha way jiraan wiil kiram dool isticmaalaa jiro qaar taanbuu saartaa jiro daroogada ada aragtid waa isticmaalay laakiin heeradaas meel ay ma kartay mamnuuc ay ka tahay ya jaad saraakiila isticmaasho waxaas way cunaan laakiin waxa way isla xaaladda heerada ma la dhaxay imaan xaafadiisa ku isticmaalaa waxaad ka warantaa nolosha al-shabaab waxaad ka baxsanaysaa nacamatel kale kaad yarayd tuulada ku noolayd waxaad ahayd nin waalidkii dhex jooga hooyadii dhex jooga nolosha caadiga u nool bal nolosha al-shabaab haddii lagu yidhaha sharax sidee u eg tahay ana hadda markaa qaastaan shisaanteeda ku hadlo markaa guriga hooyaday ku noolaay marka ayaga la noolaa marka ayaga la noolaa farxad badnaanay waqtiga guriga hooyaday qoyskooda ay ka mid tahay guriga mi bixi jiran
ani waalidiinta isma keeni jirin dugsi waa ka dhuumi jiray meelaha kala aaday laakiin markaa ayaga oo ka mid noqday 24 saac farxadaan dareemayay macnaha sidii oo waxaa ay ii sameyn jireen ilmo ayaga dhalan oo kale wiil yaraa markaas ay kulkulu jiraan okay markii aad shaqo gashay markaa ana shaqo galan waaba ka sii darneed waxaan rabo intaas u baahanahay taado waa la sii diray bisi anoo shirkala waxaan qaadan jiray $220 bisi kal dhaadhaga kalena banaanka ay ka tahay aan qaadan jiray ma jiraan wax isbaarooyin waaqa is controlyaal jiraan oo meel maaliyad oo boonooyin lagu gooyo oo lacag lagu qaada jiraan kuwaas amal anaga waxa ku leenahay bisi 180 240 kala goonay ka tahay ka waran gacanta dawladda ku jirta maadaama aad gacanta dawladda inta bilowga joogta had bilowin ma jooga baani muddo yaraa jooga oo adi 14 maalmood amal jooga gacanta dawladda okay maxaa ka rajaysaa dawladda Soomaaliya ana dar dhan walba askari in la fasaxo xoriyadnimadeeda aan helo waa rabay dhan walba askari baaday oo in la sameeyo maadaama hadda Soomaalida ku daawanaysa Soomaalida ku daawanaysa waxa laga yaabaa dagaalada aad soo gashay in dad Soomaaliyeed wax ku yeeshay in dad kale hil walaal wax ku yeeshay bal ka waran kaas maxaa weydiisanaysaa dadkaas waxaan ka fidsalaa afis inay afiyaan maadaama qof markii ogol oo ahaa qof waxyaabo qaldan oo aaminsanaa oo wada qaldan oo ku socday maadaama hadeer waxyaabaha qaladaadkaas ogaaday oo haddana la soo qabtay aan ka codsanaa dadka shacabka Soomaaliyeed inay qofkii markaas falalkaas xun gacanta kula jiray walaalihiis ama ehelkiis ama qaraawadiis ay ku dhinteen inay afis ay fadiyaan agasi dalbala danyarda ataliya waxay ama ba kula li age ka haya kula jiray hada wali gacanta al-shabaab ku jira ama fikrada khaldan aaminsan waxay ugu baaqsan ayagan waxa ugu baaqi lahaa waxaan dhihi lahaa waqtigii hogol anigu waxyaabo qaldan waa idin la aaminsanaa laakiin hadda waxaan ogaaday in al-shabaab waxyaabaha qaldan ay dadku qalasho aniga waqtigii horena soo qaldan waxaana dhihi lahaa dhalinyaradii markaas xukumayay hogaami jiray aan ugu baaqaya inay soo dhiibaan ay tooba keenaan gacanta dawladda ay iska soo dhiibaan oo waxyaabahaas qaladka ay aaminsiin ay dib ugu soo laabtaan